So maanta waxaan baranaynaa waa casharkii ugu dambeeyey isbuucan oo ah isbuuca labaad oo aan gelayno javascript aan ku jirno maalinta afraad so prototype inheritance class aan baranaynaa marka prototype inheritance class aad bay muhiim u yihiin javascript marka la dhaho waxay qaabilsan yihiin dhinaca OOP ama object oriented programming ay qaabilsan yihiin marka meeshay ka imaadeen waa meeshaas marka waxaan kaloo xooga saaraynaa habkii aan u ogaan lahayn xarafka la dhaho this oo ku jiro javascript gudahiisa meesha uu yahay this waxaa weeye waxaan camal weye haddaan waxaan ku dhaho waxaan waa book haddaan ku dhaho micnaha waxaan ka hadlaayo waa bookga marka this waxay qaabilsantaa marba meelay ku jirtaa marka meeshay ku jirto sida luuqadda caadiga u dhahdo this is a book yaad micnaha aad meesha this ku jirto this micnaheed waxaa laga wadaa bookga laga wadaa so mar qaarkoodna waxaa dhihi kartaa this is a person waxaan waa qof so thista marba meelay ku jirtaa waxay ku xiran tahay waxa aad markaas ka hadlaysid marka programmingka laftirkiisana waa sidaas oo especially luuqadan javascript calaamadan this waxay u taagan tahay marba meesha ay ku jirtay ku xiran tahay so marba meelay ku jirtay ku xiran tahay marka taasaan qeexaynaa aan ku bilaabaynaa kabacdi waxaan xoogga saaraynaa prototype-ka sida loo geliyo luuqadan waana sharaxayna wuxuu yahay prototype wuxuu ku xiran yahay objectiga luuqadan objectigeedu ku xiran yahay constructor functions waxa la dhahaa si fiican u fahmaynaa iyo sida u shaqeeyaan annagoo isticmaalayna waxa la dhaho new keyword waxaan fahmaynaa waxa la dhaho pseudo classical inheritance ama habkii hore oo loo sameyn jiray inheritansiga ama dhaxalka waana fahmaynaa waxa laga wado waxaan kale oo baran doonaa insha allah meeshaan waxay leedahay build a small game ma sameynayna gameka wuxuu ku jiraa homework oo ka mid yahay ama assignment uu ka mid yahay marka taas adinka sameynaysaan laakiin aniga example aan idin tusaaya oo exactly sida loo sameeyo waxaan sharaxaynaa class syntax waxa la dhaho oo ah habka classka loo sameeyo luuqadan luuqado badanaa classka leh marka javascriptina sidoo kale waaye waxay leedahay class laakiin classkeedu ka yiri duwan yahay luuqadaha kale marka waxaas oo dhan waan fahmi doonaa insha allah so waxaan ku bilaabaynaa marka hore calaamadda this aan ku bilaabaynaa let me just screenkiga aan weyneysado calaamadda this aan ku bilaabi doonaa code ben aan soo furto and let me open a new code ben kana meesha notekan ku qaadanayno so let me write aan ku qoro waxaan leeyahay prototype and class lecture notes Somali okay and kan aan setting ka bedelo okay si fiican noogu shaqeeyo waana save garaynaynaa so save adinkana waad heli kartaan kan oo I can share it let me open my waa heli kartaan oo markaa wax ka bedelo waa arkaysaan wax bedelmaayo okay so kanaan soo furanno so waxaan ku bilaabaynaa marka hore calaamadan this waxay tahay so calaamadda this waxyaalo badan u taagnaan kartaa laakiin saddex hab baa jiro oo loo qeexo saddexda hab number one waxaa weeye so aan ku bilaabno this keyword okay saddexda hab mid ugu horeyso waxaan leenahay hadda afarta principle ama waxyaalaha lagu qeexo principles of this keyword in JavaScript JS aan leenahay so saddex hab baa loo qeexaa number one habka ugu horeeyo waxaa weeye waa window binding aa la dhahaa window bindingka waxaa laga wadaa luqadan javascript this waxay u taagan tahay windowga ama global ay u taagan tahay so hadda haddaan kan dhahno inspect halkan haddaan dhahno oon taagno meesha cancel gudihiisa haddaan gelino this haddaan gelino oon dhahno waa maxay this wuxuu noo soo saaraya windowgu noo soo saaraya so haddaan dhahno cancel log this haddaan dhahno intaas saas haddaan dhahno wuxuu soo saaraya windowgan waa this laga wadaa marka badanaa
window binding ma lahan isticmaal badan ma laha so waxa weeye not many uses waa global object weye waana maxaa la dhihi jiray waxaa kale oo fiirin kartaa will not work in strict mode javascript waxay leedahay waxa loo strict mode waxa waaye wax kasta adkee waa javascript so haddii aan hadda inta gelino strict mode halkaas haddaan gelino so file oo javascript korkiisa haddaa geliso strict mode haddaa geliso micnaheeda waxaa waaye waxyaalaha ay javascript hore u dayn jirtay ee haddaynin waayo for example camal haddii aan dhahno kaba soo qaad hadda cancel log this haddaan dhahno ma shaqaynayso so if we run it it will give us either error or wuxuu leeyahay so cancel logga ma samayn karo code bin ma samayn karo micnaha because waa windowgii oo dhan waaye but let's say something like aan ka dhigno inta waxaan leenahay let's say something like a variable camal haddaan sameyno var is var my name is equal to cabdi haddaan dhahno on hadda aan kan dib aan ka hagaajino on dib aan ka name garayno strict modeka basically wuxuu diidaya waxyaalo badan oo javascript ogoshahay so haddii my name Ahmed so aan fiirina strict modeka inuu ogolyahay badanaa strict modeka ma isticmaaleno so hadduu shaqayn waayo so taasuu shaqaynaya laakiin waxyaala waxaa jira unu ku ogoleen especially dhinaca functionska iyo markii la dhaho objectska waxyaalahaas so ma isticmaalena so you don't need to know strict modeka laakiin ogow this ma shaqaynayso strict modeka markii aad ku jirtid so that's window binding waaye badanaa ma isticmaalena the number step midda labaad waxaa weeye waa implicit binding waxay dhahaan waxaan laga yaabaa inaan u soconin habka ay ku qoranta meesha lectureka so waa implicit binding sida uu xarafka leeyahy implicit micneheeda waxaa laga wadaa wax aanan kas loogala jeedin sida camal imply camal aa laga wadaa so implicit waxaa waaye caadi looma qeexin oo micnaha waa laska qiyaasay waaye so example camal implicit binding marka waxaa weeye most common rule waxaa weeye habka ugu badan oo isticmaalka ama most common use aad leedahay isticmaalka waxa ugu badan waaye over 80% use boqolkiiba 80 ka badanaa la isticmaalaa implicit binding so implicit binding waxaa samaynaysaa markii functionka when the function is invoked waana fiirin doonaa example is invoked function is invoked markii functionka loo yeero is invoked look to the left of the dot that is what this refers to okay so wanna fiirin doonaa example waan fiirin doonaa and so this one only applies to objects with methods so tan micnaha waxay ku shaqaynaysaa keliya objectska methodka leh so example haddaan fiirino let's look at the example aan fiirino so waxaan leenahay constant student aan leenahay equal to xasuusiya habka object loo sameeyo see object loo sameeya do you guys remember ma xasuustaan object markaa sameynaysid maxaa ku bilaabay ma waxaa ku bilaabaysaa calaamadan mise calaamad kale calaamadda ha taas waa sooma tan kale okay tan kale arrayda waa tanna array waaye tanna waxaa waaye waa object waaye so keep that in mind markii object la sameynayo calaamadaas u baahan tahay so already waa barateen objectiga cashirka ugu horreeya ku barateen objects wuxuu yahay so same thing aan sameynayna halkan so waxaan leenahay kaba soo qaad maxamed name maxamed maybe let's say my name this one because of code bin and waxaan leenahay city let's say something like Minneapolis so meesha aniga degana areada intan waxaan leenahay say hi function aan siinaynaa so function kan waxa weeye waa method waa saa ogtihiin hore u barateen kan waa review camal waaye function kan waxaan samayn karnaa cancel log aan dhihi karnaa waxaan gelin karnaa information or this information so let me copy this wuxuu dhihi doono
so waxaan gelinaynaa messagekaas messagekan waxay leedahay hi my name is magacaan so this will say my name so hadda saa ujeedid this inta already isticmaalnay laakiin hadda functionka haddaan u yeerno haddaan if we call this function habkeen ugu yeerinaa functionka haddaan rabno inaan u yeerno functionka haddaan rabno inaan invoke gareyno ama aan inta kasoo saarno say hi. Say hi, okay. So if we do that, say hi, let's Please. see if that works. Let's run. So error on the say hi ma define karaysan ma arki meel ku qoran u jeedi. So wax inaan ka hormarino waa say hi da. Okay. So object marka wax ka soo jiidanaysa say wax looga soo jiita object gudihiisa. Yeah, waxa waaye waxaa leedahay this say hi. This dot say hi. Okay. So this hadda banaankii joogtaa. So haddii aan dhahno meel ay this ay wax ka heli karto ma jiro because waa global waa remember banaanka haddii joogto waa global waa inay ku dhex jirto object. You have to inaad sheegtid waaye objective namekaaga horta. Ha. So inaan dhahno student inaan dhahno waay soo ma because waa kana student object name. So that's one way u ku raan gareynayo. So that's good. But halkan waxaan niri markii functionka loo yeero when function is invoked look to the left of the dot waxaa fiirsaa dhinaca bidixda daatka ama dhibicda dhinaca bidixdeeda fiiri that is what this refers to taas waa waxa ay calaamadda this ay ka hadlayso so hadda dhibicda waatanaa dhinaca bidixdan fiirinaynaa waa student so taasaa ku ogaanaysaa marka this waxa laga wado so kan waxaa la dhahaa implicit binding aa la dhahaa waa hab kaloo lagu ogaan karo this waxa ay u taagan tahay midka kale waxaa waa explicit binding waa oppositekiisa waaye kan explicit waxaa markii aa wax si cad u qeexaysid aa laga wadaa af english ahaan implicitna waxaa laga wadaa wax markii aadan caadi u qeexaynin ood micnaha qarqarinaysid camal ama implied camal aa laga wadaa so tan explicit bindingka waxaa weeye waad qeexaysaa exactly meesha aa ka wadid this waxaa ka wadid baa qeexaysaa so same thing aan isticmaalayna and actually waxaan sameynaynaa wuxuu leeyahay marka couple of things aan ka hadalna marka explicit binding wuxuu leeyahay dhowr shay wuxuu leeyahay waxa la dhaho call wuxuu kaloo leeyahay waxa la dhaho apply iyo wuxuu leeyahay waxa la dhaho bind saddexdaas xaraf uu leeyahay callkan marka wuxuu sameynayaa asaga will immediately invoke the function so markii aad callka aad ku dhejiso function aan sameyn doonaa functionkaas markii aad call aad ku dhejiso isla markiiba wuu u yeerayaa functionkii isla markiiba so will immediately invoke so let me get the notes will immediately invoke function okay intana waxaa waaye we will pass arguments one by one so aan arki doonaa examplekaas kana sidoo kale applyna waa sidoo kale wuxuu sameynaa will immediately invoke the functionka markii asaga aan ku xirno functionka isla markii functionku u yeeraa laakiin kan waxaa waaye pass argument as array okay so kan badanaa lama isticmaalo waana arki doonaa example aad looma isticmaalo so callka ama bindka badanaa la isticmaalaa so bindkan waxaa waaye will not waa kan will not immediately invoke the function isla markii function kuma yeeraayo waxay noqonaysaa in aan pass arguments one by one waa kan one by one waxaan kaloo sameynaynaa kan wuxuu soo celinayaa will return new function that we can invoke later wuxuu soo celinayaa function aan dib ugu yeeri karno so kan uu ka yiri duwan yahay marka kulkood so hadda aan sameyno marka hore waxaan ku bilaabaynaa callka so callka waxaan sameynaynaa function caadi aan sameynaynaa halkan functionkaana waxaa waaye object created aa la dhahaa waxaa waaye wuxuu sameynayaa objectiu sameynaya markii aan isticmaalno so waxaan leenahay console log this dot name aan leenahay or my name there
so function kan marka waxaan ku sameynaynaa objectian ka sameynaynaa marka functionka laftirkiisa so keep in mind that functionska javascript functions are objects functionska lagu sheegayo dhan laftirkooda objects waa keep that in mind so hadda kan aan saan leenahay waxaan kaloo dhihi karnaa for example saan waa la dhihi karaa constant student equal to waxaan dhihi karnaa this that my name waa dhihi kartaa saasoo dhihi kartaa intan waxaa kala mid dhigaysaa sida ama saasaa samaynaysaa ama you could just intan waxaa gelinaysaa waxa u baahan tahay so we will see example arki doonaa laakiin keep in mind function markuu saan yahay micnaheedu waa just waa object caadi ah waaye okay waxaan sameynaynaa marka waxaan ka sameynaynaa objectaan ka sameynaynaa functionkan so we'll create another object waxaan leenahay student 1 is equal to waxaan leenahay inta waxaan gelinaynaa name let's say Fatima inta waxaan dhahnaa my name and then just kan object caadi waaye location let's say something like Ohio camal aan leenahay okay so hadda student 1 aan ka sameynay haddaan rabno inaan u yeerno student 1 waxaan sameynaynaa marka so objectigan iyo functionka iskuma xirno so haddaan rabno inaan isku xirno waxaan isticmaalaynaa keywordka call aan isticmaalaynaa so waxaan sameynaynaa waxaan leenahay student waxaan u yeeraynaa functionka magaciisa waxaan leenahay that callku waa function caadi ah waa ku dhex jira javascript kabacdi waxaan u yeeraynaa magaca objectiga saasaan ugu yeeraynaa so hadda uu isku xiray marka so hadda haddii aan caadi u yeerno it will automatically run marka caadi u run garaynaa so kan haddii aan iska xirno clear aan leenahay so hadda wuxuu soo jiidanaya objectigu soo jiidaya ama Fadumo soo jiidaya and it will find Fadumo because waxaan u yeernay inta waxaan cancel loo garaynay nameka haddaan cancel loo garaynay locationka sidoo kale locationku u yeeraya okay so that call saasaa loo isticmaalaa isla markiina functionku u yeeraysaa oo way invoke garaynaysaa and that applyna waa sidoo kale laakiin waxaa pass garaynaysaa array so meesha ka pass garayn lahayd objectiga halkan waxaa gelinaysaa array aa gelinaysaa so that apply ma sameynayna because badanaa lama isticmaalo bindkaan sameynayna bindku ka yar duwan yahay wax yar wax badan kama duuno just same thing aan sameynayna functionka caadigaan sameynayna kan camal we create the same function and then waxaan u yeeraynaa same object aan sameynayna waxaan leenahay constant so let's kuwaan iska xirno okay and same thing aan ugu yeeraynaa wax yar isugu waxaan gelinayaa computerka waxaan ka iloobay inaan geliyo maxaa la dhihi jiray inaan geliyo chargerka so give me a second okay that's much better I think we're EJ done on that too it's important okay good so waxaan sameynaynaa markaa the bindka waaye so same thing student 1 aan sameynaynaa student 1 is equal to waxaan siinaynaa informationkii let's say my name waxaan gelinaynaa let's say something like Ahmed and then kan waxaan gelinaynaa location we could do something like Somali camal okay so hadda markaan u yeerayna marka bindka waxaan sameynaynaa same thing aan sameynaynaa laakiin marka hore waa inaad ku xarayso resultiga inaad ku xarayso way function waa inaad ku xarayso variable so inaad dhahdo waxaan leenahay first student ka dhigbo so magacaan siinaynaa marka hore waxaan leenahay first student and then waxaan sameynaynaa sidoo kale aan sameynaynaa marka we say student dot bind and then waxaan gelinaynaa studentka halkan so kan saa ujeed bindka wuxuu uga duwan yahay just waxaa lagu xareynayaa resultigii meel cusub aa lagu xareynaya kaasaa loo yeeraya marka if you want to invoke something kaasaa la invoke garaynaya so we say first student and then invoke garaya so hadda if we run it clear aan dhahno it should work ama cancel login aan gelino
ha Ahmed Somali so bind ka saas ugu duwan yahay any question or bind ka before aan u gudbin habka kale habka saddexaad ama afraadan ka wada habka ugu dambeeyo principles mid ugu dambayso so mid ugu dambayso waxa la dhahaa marka new bind na la dhahaa so labada ugu muhiimsan waxa waaye waa kan implicit binding-ka iyo new binding-ka labadaas u baahan tahay si fiican u fahanto kan hadda kan xataa also waxa ka u baahan tahay ka fahanto qaybtan call-ka sida loo sameeyo muxuu yahay call-ku muxuu sameeyaa what does the call do call-ku wuxuu sameeyaa function oo constructor la function kan iyo wuxuu ku xirayaa objectigiisa ama instant marka xirka bacdan barnayna taasna okay so new binding-ka waxa marka using the new keyword array waxaan isticmaalaynaa la dhaho new waxaan sameynaynaa marka constructs a new object so array waxaan isticmaalaynaa new la dhaho ereygaasa wuxuu ka sameynayaa function camal oo constructor function ah oo kuwa hadda soo marnay camal ah iyo wuxuu ka sameynaa object cusub ka sameynaya so that's another way oo loo sameeyo a new object and this points to the newly created object okay and also when the function is invoked on the function as a parameter as a parameter okay when the function is invoked when the function is invoked as a constructor I mean constructor using the new keyword وانا شرحي doonaa waxaan ka wadno keyword I think tan waan dhahnay so we don't need it so markii function kale invoke gareeyo this waxa laga wadaa objectiga cusub aan sameeyna okay so now waxaan sameynaynaa function marka function kan waxaan passaynaa pass arguments one by one way arguments or parameters aan kada one by one okay so saana u sameynaynaa function kaas just sidii kii hore camal waaye waxaan waxa la constructor function la dhahaa so waxaan leenahay constructor function waxa ku garanaysaa calaamadan oo capitalka so array kasto marka bilaabis constructor function sida camal bilaabis xarafka ugu horeeyo waa inuu ahaado capital saasa lagu ogaanaya so haddaan ku dhaho constructor function this so kan waxa la dhahaa constructor function ala dhahaa wuxuu dhisaa constructor waxa qof wax dhisa waaye wuxuu dhisaa object soo dhisaa so inta waxaan leenahay name ama my name and location aan leenahay so saasa ugu baas garanaysaa kan inta waxaan leenahay marka this dot name or my name is equal to my name saasa laisku barbardhigaa kan waxaan leenahay this dot location is equal to location okay so constructor function saas u qoran yahay marka now waxaan sameynaynaa marka waxaan ka sameynaynaa object cusub aan ka sameynaa constructor function kan so si looga sameeyo waxaa sida kii hore baan sameynaynaa student 1 aan leenahay marka waxaa isticmaalaysaa new aa isticmaalaysaa waxaa soo jiidanaysaa functionka magaciisa waa kana kabacdi hadda waxaa ka sameynaysaa marka wax kale so hadda kan wuxuu sameynayaa one by one waaye laakiin waan arki doonaa isagoo hal mar kulligiis loo yeerayo so inta waxaan leenahay kaba soo qaad axmed kan object ma sameynayo macnaa object cusub kama sameynayno waxaan ka sameynaynaa waa one by one saa markuu yahay macnaa object ma sameynayo waxaa ku sameyn kartaa informationkana waxaa u gelin kartaa halkan so location let's say something like let's say California andahno okay so hadda dii aan u yeerno cancel log hadaan dhahno student 1 dot location camal aan leenahay u yeerinaa so clear aan leenahay waa inuu California noo soo bixiyo so tan waxaa ku ogaanaysaa halka waxa uu kaga duwan kuwa kale waxaa waa new gaas bis waaye new and then waxaa gelinaysaa waxyaalahan waxay yihiin so kan wuxuu yahay iyo kan wuxuu yahay inta gelinaysaa
so kan waxaa la dhahaa marka constructor function oo 1 by 1 u pass gareynaysid mid waxaan sameynaynaa 1 by 1 ahayn marka hadda so let's make kan waxaan leenahay not 1 by 1 arguments lena okay so kan wuu ka duwan yahay kaas so kan waxaan sameynaysaa same thing aan sameynaynaa functionka caadiga aan sameynayna studentiga capital S student kan waxaan gelinaynaa marka hal xaraf halkan gelinaa halkan xaraf waxaa rabta ugu wici kartaa laakiin waa inaa markasta isticmaasho so inta waxaan leenahay hadda attributes aan leenahay attributes waa hal xaraf waaye oo kulli ay soo galayaan wax kasto hal objectia ku diraysaa kaas asagaa marka ogaanaya wixii dhan so this waxaan leenahay my name is equal to waxaan leenahay kan this one is different so waxaan leenahay attributes dot my name okay and then waxaan leenahay this dot location is equal to attributes dot location okay so kan wuu ka yara duwan yahay waa not laguma baas gareynayo 1 by 1 ma aha laakiin waxaan sameynaynaa object cusub aan sameynaynaa marka kan so just like kii hore camal waxaan leenahay constant student 1 is equal to new student meesha halkan aan ereyo aan ka baas gareyn lahayn sida kan camal xarfahan waxaan gelinaynaa object caadi aan gelinaynaa halkan so saasaan u baas gareynaynaa so kan nooga xir so same thing aan gelinaynaa halkan just waxaan leenahay my name inta waxaan gelinaynaa Ahmed let's say and halkan waxaan gelinaynaa location and let's say California let's say Minnesota okay so same thing aan ugu yeeraynaa we're just gonna call it waxaan leenahay console log student 1 dot location camal aa leedahay waa inuu soo print karaya Minnesota camal okay one more thing yeah this one is missing okay so constructorska markaad sameynaysid waa these are markii aad isticmaalaysid new bindingka saas waaye new bindingka waxaa ku ogaanaysaa wuxuu yahay waa waxa halkan waxaan ku qornay points to newly created object so newly created objectiga waa kan waaye so kan waa laga wadaa this marka thiska waa kan iyo kan camal this one kaasaa this laga wadaa marka keep that in mind wax su'aala so far so hadda waxaan qeexaynaa oo keliya this meesha ay micnaha ku point garaynayso habab kala duwanaa lagu ogaan karaa waa new bindingka waxaa ku ogaan kartaa meesha object cusub markaad samayso objectigaas waaye this waaye kan waa objectigaasaa this laga wadaa waxaan kale oon baranay explicit binding oo ah adigaa qeexaysid meesha uu this uu aadsan yahay so waxaan isticmaalaynaa call ama waxaan isticmaalaynaa bind so call markaad isticmaalaysid kanaa laga wadaa thisaa laga wadaa so intaa ku sharaxnay let's see so we'll return a new okay so either way it's the same as the new binding waaye so objectiga cusub oo la sameeyey yaa this laga wadaa markii aad sameynaysid callka kuwa kalena sidoo kale bindkana sidoo kale waxaa laga wadaa objectiga cusub so mar kasta waxay point garaynaysaa calaamadda this objectii raadinaysaa calaamadda waa object u taaganta any questions su'aala so waxaan gelaynaa prototype aan gelaynaa iyo constructor functionska waxa la dhaho and hopefully we can go over everything wax su'aala so far okay let's see no good okay let me get some water okay prototype kan gudbayna marka prototype muxuu yahay marka hore inaan faahno horta sidiisa dhanba so hoosda aadno waa kana prototype kalkana lagu sharaxayaa wuxuu yahay prototype intaan gelinna waxaan u baahan inaan sameyno wax la dhaho constructor function oo kuwii hadda aan sameynayna camal ah laakiin mid loogu talagalay in uu la shaqeeyo prototypeka
yaan ku sameynayna. So we'll create a constructor function iyo waxaas oo dhan. Laakiin prototype horta meeshuu jiro, meeshuu ka imaado marka hore aan sharaxno. Luqadan JavaScript mar kasta ood object aad samaysid, aan ogow functionna waa object ogow. So markasta ama function aad samaysid, ogowna arrayna waa object. So arrayga laftirkeeda waa object waaye. So array ama function ama object laftirkiisa haddaad samayso, waxaa ku xiran waxa la dhaho proto. So hadda haddaan tagno meeshan cancelka, clear everything. waxaan sameynaynaa waxaan leenahay constant, waxaan sameynaynaa let's say new object aan sameynaynaa. Waa magacaana iskala baxay. Object empty ahaan gelinaynaa. So waxaan leenahay go ahead. So waxaan u yeeraynaa marka objectkaas empty aan sameynay. Waxaan leenahay new object aan leenahay. Kaasa. So enter aan leenahay. So asagoo empty noo soo bixiyey waa kana asagoo waxba ku jirin. Laakiin haddaan gudaha usii fiirino falaara halkan ku taala falaartaas haddaan furno waxaa arkaysaa waxaa ku dhegan wax la dhaho proto. Protogan waxaa waaye marka waa property ku xiran object kasto ama function kasto. Haddaan function sameyno ama array aad samaysid kulli ku xirayn. Hadda haddaan array sameyno aan dhahno constant new array haddaan dhahno oo array halkaan sameyno empty ah enter dhahno new array haddaan u yeerno matana enter dhahno proto oo kaasa. Function haddaan samaysid sidoo kale haddaan u yeerto function waxaa ku jiro protogaasa ku jiro. So if you create a function, let's say something like add camal aan leenahay, and then we just do that. Inta waxaan gelinaynaa console camal add waxaan leenahay add this numbers, okay, and then soo xiraynaa functionka and then enter aan leenahay. Haddaan invoke gareyno aan dhahna add aan raan gareyno oo kan console waaye. So return markaan dhahno waxaa arkaysaa falaarta furtid halka return aan ahayd waxaa arkaysaa waxaa ku jiro protogaasa ku jiro. So kulli wuu ku wada xiran yahay, it's all connected, protogaas uu ku jiraa. So intaana proto u gudbin marka before we move to prototype waxaan u baahana marka hore inaan sharaxno waxa la dhaho constructor. So inta waxaa constructor function wax yarna waan taabanay oo waa ujeedna halkan constructor functionka waa kana. Laakiin kan waxaa waa ku gooni u ah ama si fiican iskugu organize gareeye waaye oo loogu talagalay methodkii waxaa dhanaa gelin kartaa. Sida methodkii loo gelinaa waxyaan fiirinaynaa. So function caadi waa kan waxaan gelinaynaa person camal leenahay, waxaan gelinaynaa attributes oo hadda dhan aan soo baranay oo micnaheedu waxaa waaye kulli objectka halkaana la gelinaya waxyaalihii dhan. Waxaan gelinaynaa dhowr wax. So waxaan leenahay this dot age camal aan leenahay is equal to attributes dot age. Waxaan kaloo gelinaynaa this dot my name is equal to attributes. So waa inaad dhahdo attributes mar kasto maxaa yeelay waxaa u baahan tahay wixii inta ka imaado inay inta galaan. Dot my name and waxaan leenahay this dot hometown is equal to attributes dot hometown. Okay. Waxaan kaloo gelinaynaa function ama method oo la dhaho this dot speak and this dot speak. Waxaan kala mid dhigaynaa function oo anonymous function. Waxaan gelinaynaa calaamadda waxaan leenahay return message aan gelinaynaa soo koobi garay messageka si waqti inoo badbaado. Calaamaddaas gelinaynaa. So messageka waxay leedahay hello my name is Hebel. It would be my name and I am from this hometown. Okay, so that's it. So intaasuu leeyahay. So construction functionka waa sameynay waa sida functionka caadiga ahaa oo bilaaban sameynayni, laakiin kan waa function oo mar kasta noo sameynayo object cusub noo sameynayo oo sida objectigan ku bilawnay oo this one aan ku bilawnay iyo mar kasta noo sameynayo. Kan hadda asaga keligiis waaye wax kale ma sameynayo, waad wixiisa dhan way ku jiraan. Laakiin haddaa kana camal aad rabtid inaad samaysid mar kasta ood u yeertid waxaa weysaana loo sameeyaa. Okay, so hadda waxaan ka sameynaynaa kan marka object aan ka sameynaynaa. Let's create a new object from this. So waxaan leenahay constant waxaan leenahay let's say like xamdi camal aan leenahay is equal to hore aan soo barnay tan new person. Markaa ku xiraysid waa new binding way hadda aan soo baranay. Waxaa gelinaysaa object halkan gelinaysaa. Let me just copy qofka informationkiisa aan gelinayna halkaas. So age-ka hometown iyo name my name ka dhig. Okay,
so had everything is good hora usoo barto waxaan so let's say console log something like waxaan leenahay hamdi dot speak camal so hora usoo barta this one so it should give us a message can so boom kasa hello my name is Hamdi and I'm from St. Paul okay so and so that's the hora u barata taas laakiin hadda waxaan ku dareynaa prototype aan ku dareynaa so function kan sababtaan prototype ugu dareyno waxaa weeye prototype waxay mar kasta aan u yeerno object cusub markaa samayso oo objectigaas mar kasta loo yeero oo micnaha saan la dhaca camal ama dhowr xaboo kale aan sameyno mid kasta u yeerno javascript waxay samaynaysaa functionkan methodkan iyo mar kasta waxay ku dhex samaynaysaa functionka gudihiisa so it will create a new one mid kale cusub haddaa haysato kaba soo qaad ilaa 20 ilaa 100 wax ku dhadhow objects oo noocaane oo kala cusub oo mid kasta cusub yahay softwarekaada dhan slow noqonaya oo wuxuu qaadanaysaa saacad camal in uu functionkan ku raangareeyo oo ku sameeyo wixii oo dhan so marka waxaan sameeyay inta soo gaaro slow noqonaya maxaa yeelay waa inuu sameeyo 100 function gudihiisa inuu ku sameeyo waa functionkan oo ku generate gareeyo sidaa darteed ragga javascript sameeyey waxay soo saareen wax la dhaho prototype so prototype wuxuu sameynayaa functionkan oo meesha ka bixinaya it will take this banaanku geenaya mar kasta oo loo yeero functionka marka object aad ku sameynaysid wuxuu banaanka looga yeeraya methodkan so ma sameynaa mid cusub ma sameynaa wuu u yeeraa bas so sababta loo sameeyo waa taas waay haddana lama isticmaalo prototype-ka so class la isticmaala hadda so prototype waa wax waa hore la isticmaali jiray so inaad baratan way fiicanta maxaa yeele classka hoostiisa oo sida hoos oga shaqeeyo waxa weeye waa prototype weyn haddii laakiin ma taabanaysid so inta waxaan leenahay add prototype aan ku daraynaa so prototype aan ku daraynaa so same thing aan soo qaadanaynaa we're just gonna copy the same thing and intaan ka copy garanaynaa so intaanan comment out ku samee okay aan soo qaadanaynaa intaa keensanaynaa marka so hadda waxaan sameynaynaa marka first step waxaa waaye inaan geyno functionka banaanka habka loo geynayo waxaa waaye waxaa soo jiidanaysaa magaca oo functionka ah leedahay dot prototype dot speak ah leedahay waxaa gelinaysaa functionka magaciisa intaa marka gelinaysaa functionki soo copy garanaysaa so let's copy all this saas halkaa u gelinaysaa kanaa marka ka bixinaysaa meesha remove it so hadda kan mar kasta oo loo yeero automatically wuxuu sameynayaa wuxuu u yeerayaa mar kasta oo functionkan loo yeero wuxuu raadinayaa haddii la infogareeyey magacaas speak banaanku ka raadinaya so wuu soo jiidanayaa kabacdi ma sameynaa mid cusub ma sameynaa mar kasta so that's the shaqada ugu weyn oo prototype-ka qabto waa taas wey so hadda haddii aan object cusub ka sameyno let's create a new object or same thing let's see where's the object let's copy ka koraan soo jiidanaynaa no problem so kan camalaan sameynaynaa inta can so hadda sidiis hore u shaqeynayaa everything will work normal so haddii aan u yeernaa dhahno Hamdi speak haddaan dhahno console log Hamdi dot speak functionka caadiga so same thing aan noo soo baxayso laakiin waa arkaysaa prototype-ka exactly sidii hore u shaqeynaya so prototype-ku u yeeraya mar kasto so keep that in mind so prototype lagu sheegaya wakaasa waa methodkii oo objectiga ama functionka oo banaanka loo soo bixiyey waaye oo mar kasto laga soo raadsanayo banaanka meesha functionkan mar kasto gudaha laga sameyn lahaa that's a prototype wax su'aala prototype-ka lagu sheegaya dhan waa intaas waxaa sameyn kartaa marka waxa la dhaho inheritance waa dhaxal waaye inheritance I think that's how you spell inheritance oo inaa ka maqan inheritance waa dhaxal so waxaan rabnaa inaan dhaxalno functionkan kore oo mid kale aan ka sameyno copy inaan ka sameynaa rabnaa so haddaan rabna inaan dhaxalno waxaan leenahay function aan sameynaynaa la dhaho child waxaan siinaynaa attributeskiisa waxaa rabtaa ugu wici kartaa waxaan leeyahay inta child attributes intaa ka sameynaysaa so hadda haddaan rabno inaan soo dhaxalno
waxaan meesha ku yaalo dhan qaybtan dhan so marka hore waxaan ku bilaabaynaa qaybtan so waxaan rabnaa inaan soo jiidano waxaan oo dhan annagoo dhan mar kala qoraynin waxay isticmaalaysaa marka .callka isticmaalaysaa inta waxaan leenahay person .call waxaa gelinaysaa inta this aa leedahay intana waxaa gelinaysaa child attributes so waxaan qaybtan linekan wuxuu kusoo jiidayaa this so waxaan sameynaynaa commenta gelinaynaa halkan this will copy all the attributes of person constructor so wuxuu soo copy garaynayaa kulli attributeskan soo copy garaynayaa so linekan bes haddaa rabti inaad wax kale ku darsatid intaa ku darsan kartaa you could add more attributes here attributes for child here so kuwa kale haddaa rabti intaa ku darsan kartaa waxaa leedahay this dot waxaa leedahay let's say camal study ama waxaa leedahay favorite subject is equal to child attributes that favorite subjects okay so saasaa u samayn kartaa but we'll not do this so kan waxaan soo dhaxalnay person aan soo dhaxalnay oo ahaa function kore okay so haddaan rabno inaan soo dhaxalno prototype waxaan sameynaynaa marka how do we get the prototype-ka so prototype haddaan rabno inaan soo dhaxalno waxaan sameynaynaa prototype cusub so waxaan leenahay child dot prototype is equal to waxaan isticmaalaynaa method la dhaho ama calaamad la dhaho object dot create oo wax ku jira javascript waaye kabacdi waxaan kasoo jiidanaynaa person dot prototype so prototype kore oo speak haddaan rabno inaan soo jiidano saanaa loo soo jiitaa so waxaa leedahay child waxaa weeye waa functionka magaciisa oo functionka rabo inuu wax dhaxlo dot prototype is equal to object dot create and then waxaa gelinaysaa kan laga soo dhaxlaayo person dot prototype so that's it so this one waxaa waay marka tell the child to inherit the parent kan waxaa the person waaye person function methods so methodka wuxuu soo jiidanayaa parentiga ama kan koru soo jiidanaya kan so hadda same thing aan sameynaynaa let me create object cusub so object cusub haddaan sameynayno waxaan leenahay constant let's say constant waxaan leeyahay mursal camal aan leeyahay is equal to new so hadda halkan newgan remember halkan waxaan nidhi new person aan nidhi markaa object cusub sameynayno oo kan aan soo jiidinaynaa halkan waxaan leenahay new person mise new child aan leenahay midkaa ma leenaysaan new person why do you think new person new because hadda kan dhaxal waa waxaan dhaxlayna waaye waa already waan soo dhaxalnay ogow person dot call markaan dhahnaan soo dhaxalnay aan kasoo qaadanay wax kan so hadda waxaan sameynaynaa waa childka wey so waxaan leenahay new child aan leenahay because waxaan sameynaynaa object cusub oo childka aan sameynaynaa ma sameynayno midkan oo person ma sameynayno already wuxuu person kala hadha aan soo jiidanay so hadda waxaan u baahanay bis inaan object cusub ka sameyno so new child aan leenahay kabacdi halkan waxaan gelinaynaa waxyaalaha oo cunuga informationkiisa so let's just create a new thing here okay so inta waxaan gelinaynaa my name okay so hadda everything looks good waxaan u yeelaynaa marka cunuga wixiisa u yeelaynaa so let's call invoke cunuga informationkiisa so hadda waxaan dhahnay mursal dot speak aan niri remember speak kuma jiro child kuma jiro speak waxaan kusoo jiidanay prototypekan object dot create kana kusoo jiidanay so maana sameynin method la dhaho speak so hadda daan u yeerno so should run let me just get rid of this one and kuwan waxaa laga yaabaa inay dhahaan already waa declare garaysay no we have to keep that because waxaan u baahnay inaan soo dhaxalno so saasaan leenahay run so hadda wuxuu leeyahay hello my name is Mursal and I am from St. Paul so Mursal St. Paul objectiga hadda cusub aan sameyno waaye so methodkii aan isticmaalno any question about the habka loo dhaxlaayo
constructor kan kore sana u dhaxalna child person.call gudihiisa gelinaysaa and then this waxa waaye waa kan objectigan waaye and then child attributes kana waxa waaye waa waxaan ku replace gareynaynaa attributes waxaa lagu replace gareynayaa child attributes yaa loo gelinayaa. Okay, any question before we move on? Let me know. Okay, so what am I doing? Okay, so Hansarina can comment Hansarina. What's wrong with me? Okay, see this is that. Yeah, comment out. Okay, so hadda waxaan sameynaynaa markaa waxaan kaloo samayn karnaa method cusub oo samayn kartaa childka sida camal aan ugu sameynaa kan. So waxaa leedahay child.prototype methodka magaciisa ka bacdina saas ugu sameynaysaa. So let's move on marka. So the next step waxaa classeska. Classeska waxaa markii laga soo gudbo let me see. Markii laga soo gudbo meeshaan la dhaho prototype-ka yaa classeska la soo gelaya. So prototype-ka waa habkii hore, classeska waa habka cusub wax loo sameeyo. So let's write about classes. So classeska waxaa sameynaysaa marka couple of things uu leeyahay. waxyaalihiisna strict waa marka classka. waxaa leenahay classes are not hoisted. Hoistedka waan soo barnay haddaa xasuusatid. waxaan niri waxaa weeye waa markii wax kor lagu qeexo oo let's say function camal kor looga yeero laakiin hoos lagu sameeyo functionkii. JavaScript way ogaanaysaa marka inuu functionkaas jiro. laakiin classeska saas kuma samayn kartid. waa inaad qeexdo intaadan micnaha u yeerin. waxaa kale oo classeska waxay isticmaalaan they use strict mode. Okay, si wixii loo adkeeyo oo qofkii una micnaha una wuxuu rabo u sameynin. So that's one. Another thing would be methods have special syntax. Okay, methodska hab gooniya loo qoraa. intan waxaa waaye constructor functionska aan sameynayni sidoo kan camal oo iyo ama kan constructor functionka gudaha la gelinayaa. So constructor functions will be moved inside class. Okay, that's one thing. So that's that. Let's make aan sameyna marka mid oo class cusub aan sameynayna marka classka marka function waxa sameynaysa waxaa leedahay class person aan leenahay kabacdi waxaa furanaysaa baashi. That's it. So constructorka dhisaysaa marka ugu horeysa marka waxaa leedahay ereygaan isticmaalaysa constructor waxaa gelinaysaa attributes. Remember waa functionka caadigan sameynayno gudaha la soo geliyo waaye kii attributeska. inta waxaa gelinaysaa marka waxyaalihii aan horey aan u baranay or this that my name this and that or exactly same thing waaye sida kor aan ugu qeexnay. It's my name. Okay. markaan qeexayno marka methodka markaan qeexayno yeah, go ahead wax maartina dhado. Okay, so methodka markaan qeexaynana waa classka gudihiisa lagu qeexaya. ma jiro wax la dhaho prototype waxaas ma sameynaysid. So inta waxaan leenahay kaba soo qaada camal waxaan isticmaalaynaa jobs and then waxaa leedahay waa furaysaa. So calaamadda functionna ma isticmaalayno. So waxaa leedahay jobs wax ma jiro comma iyo waxa ma jiraan halkan just jobs aa leedahay waxaa furaysaa functionka curly bracketkiisa. already wuu ogyahay classka inaad ka wadid function marka uma baahan inaad calaamadda function aad geliso halkan. So waxaan leenahay return message aan soo celinaynaa and then waxaan gelinayaa message halkan. So return tan waxaa ku bedeshaa my name. So return message. So wixii oo dhan waa kana prototype wixii oo dhan isku jiro waa kaasa. So hadda just waxaan sameynaynaa marka object cusub la ka sameynaynaa marka let's create a new object from this. So new object from a person. Okay, so just waxaan leenahay constant let's say mom camal waxaan leenahay new waxaan isticmaalnaa classka magaciisa. So new person just same thing aan sameynayna waa maanta aan sameynayna. So let me copy all this. wixii horaan u sameynayna waa. So wixii qofka informationkiisa aan qeexnay
kasa mom location and work. Remember work waa ku jirta halkan waa kana work wuxuu qof ka shaqeeyo. So hadda haddaan rabnaa u yeerno if we want to call method haddaan u yeerno inaan mom ugu yeerno just waxaan leenahay mom dot waxaan leenahay job and that's it. So hopefully we'll not shaqeynaya maybe cancel login aan dhahno yeah okay person already declared okay so kanna meesha ka bixina waaye so person already waa sameysuu leeyahay. Let's comment this out. Okay, so clear, run. Okay, it's not a function. Okay, so there is something oo meeshan ku jiro why u dhahaya and jobs mia. Did I say jobs? Yeah, I said jobs. Okay, never mind. Yeah, sometimes you get errors kaas yararka ana iska saxdo waay xarfaas u qortay. Hopefully that works. Cancel login aan dhahu rabaa. Okay. Can job and then can corona job and it's easier that way. Run. So message kasi no also bixiyo waaye. Okay. So and class ka dhammo intaas waaye. That's it for class. So waa kaasa class si loo sameeyo waa kana objective si loo sameeyo. So hadda hal xabaan ku daraynaa oo ah inheritance-gii. So remember markaan prototype sameynayna waxaan sameynay inheritance ama dhaxal. Same thing aan sameynayna marka classka gudihiisana. So assignmentiga I think oo markii aan sameynayno sprint projectiga waxaa laga rabaa inaad u bedeshid prototypesaan camale inaad u bedeshid aa la rabaa class inaad u bedeshid marka ogow keep that in mind. So hadda markaan sameynayno inheritance haddaan sameynayno ama dhaxal okay classka saana loo sameeya marka classka is very simple waa fududahay. So waxaa leedahay class waxaa isticmaalaysaa dhowr ereyaa isticmaalaysaa but inta aanan gelin actually inheritance-ga aan sharaxo dhowr wax. So inheritance-ga marka waxaa jiro waxa la dhaho erey la dhahaa jiro extends ereygaas wuxuu sameynayaa it tells the class the child class level where it came from yuu u sheegayaa. Waxaa kale oo jiro error la dhaho super waa function caadi waaye ku dhex jiro wuxuu ku dhex jiraa childka super wuxuu sameynayaa it grabs all the attributes of the parent class. Okay, and then waxaa weeye waa extends and super oo soo socdo labadoodana way soo shaqeeyaan. Waxay sameynayaan marka waxay sameynayaan they do what object that create and parent that call do. So labadan waxay sameeyaan markii aan joogno prototype-ka yaa waxay sameeyaan extends. So and also it doesn't grab attributes kan ka wada waxaa grab gareeyo extends. This one wuxuu grab gareynaya it grabs all the methods of the parents. So prototype-ka meeshaan ku sameynayna iyo super ka soo jiidanaya. Extends-na waxay soo jiidanaysaa classka wuxuu ahaa dhan iyo attributeskiisii. Okay, so that's shaqadood intaas waay marka inheritance marka lagu sheegayo waa kaasa. Let me example intusa marka inheritance so waxaan leenahay class inta leenahay waxaan sameynaa ka soo qaad magac child aan bixinaynaa classka waxaan leenahay extends person. So wuxuu sameynayaa wuxuu wax ka soo jiidanaya extends waxaa markaa wax ka soo jiidanaysa camal ama wax dheer waa extends. So extension code waa maqasheen fiilada extensionka waa fiilo gaaban oo fiilo kale lagu sii xiray oo lasii dheereeyey saas lagu sii dheereeyey. So extendska waxaa weye marka uu sii dheereynayaa ama uu sii ballaarinayaa. So child wuxuu wax ka soo jiidanayaa person wax ka soo jiidanaya. So same thing aan sameynaynaa constructor waxaan sameynaynaa child attributes aan leenahay halkan functionka caadiga furaynaa waa constructor functionkii
inta marka ma dhehaysid this dot age waxaas ma dhehaysid waxaa leedahay super aad gelinaysaa calaamadda superka gudihiisa waxaa gelinaysaa child attributes okay same thing and then kabacdi inta waxaa gelin kartaa waxyaalaha extrada u ah childka so inta camal waxaa gelin kartaa this dot favorite subject camal haddaa waxaan dhehayna yaa gelin kartaa okay laakiin waxaad dartaa micnaheedu waxaa waaye wuu soo jiitay wax kasta oo uu leeyahay classkan uu leeyahay so methodka iyo also calaamadahan attributeska wuu soo jiitay already so wax kale uma baahnin we don't need anything else haddaa rabti inaad method cusub samaysid something like study camal harta inaad samaysid intaa ku samaynaysaa so tan waxay gooni u tahay childka gooni u tahay so just let's copy something here angelino tan waxaa dhahdaa my name so my name kan iyo major kan so hadda majorka maana samayn actually let's create the major kan so let's create this dot majorka because kuma jiro waaridka kuma jiro oo classkan kore major kuma jiro so waxaan leenahay major is equal to child attributes waxa aad rabtaa ugu wici kartaa child attributes kan major okay that's that so hadda child class kan sameynay oo childka so hadda waxaan sameynaynaa objectan ka sameynaynaa kan marka waxaan leenahay constant let's say daughter camal ama gabar la dhalay new inta waxaan leenahay remember markaan dhehaynay prototypeka habkii aan idin weydiiyey hadda kan waxaan leeyahay new person mise new child kan waa childka wey waa kii lasoo dhaxlay waaya object cusubna waan rabaa inaan sameeyo what do you think new child mise new person maxay isleediin so halkan waxaan leenahay marka new child aan leenahay because waxaan soo object ka sameynaynaa childka person kama sameynayno so same thing aan sameynaynaa sida kan kale so let me just aan kasoo koobi garay information halkan meesha magaca ii bedel so just information oo waxaa waaye cunugan camal informationkiisa ama gabadhan so shaqada ay qabato student waaye majorkeeda nurse magaca wakaasa all that stuff so hadda haddaan soo jiidano marka if we invoke functionkii haddaan u yeerno ama methodkii aan ku samayna inta sida kan camal jobs so let's try kan jobs kan isku dayno so waxaan leenahay daughter dot jobs aan leenahay ama job like that let's see wuxuu soo saaro okay so the mom is a shop owner Fortune is a student see wixii oo dhan waa wuxuu sameeyey isku dubriday hadda waxaan kale u yeeri karnaa methodka kale studyga u yeeri karnaa so let's say here study okay run methodkan waxay gooni u tahay childkii gooni u tahay so you should say something different so wuxuu yiri Fortune is studying nursing should be nursing here any questions because waa noo dhamaatay that's pretty much it for classeska iyo prototypeka wax su'aal any questions u muhiimsanaa oo object oriented so classkan sababtan u baranayna prototypeka u baahantay inaad barato maxaa yeelay waxay asal u yihiin classkan waxaa weye wixii aan baran doono mustaqbalka xoogaan saari doono waa classka from now on laakiin waxaa asal u ah inaad baratid prototypeka u shaqeeyo javascript gudaheeda iyo inheritancegan lagu sheegayo haddaan maqashid object oriented inheritance haddaan maqashid waa saan camal waa dhaxalidan oo classkaas la dhaxlaayo saan loo dhaxlaayo extenskan constructorkaa samaynaysaa superkana isticmaalaysaa saa u yeertid methodskii aa ugu soo yeertid haddaa wax rabto cusub aad rabtid inaad samaynaysaa method cusub kaasaa so that's pretty much it noteskana waa haysataan so let me know any question haddaa ka qabtaan aan fiirina marka assignmentiga so hoos daa aadno assignmentiga waa kana assignmentiga marka waxay leedahay saddex waxay leedahay midkaana ku bilaabi kartaan diskan waxaa waa basically wuxuu ku leeyahay afarta principle on ka hadalnay halkan ku qeex magacooda kabacdina wuxuu ku leeyahay waxaa code iga sii mid kasta example iga sii midda ugu horeysa taas waaye prototypeka ku xijinaysaa so prototypeka waa game waaye
so gamekan xoogaa is a little more wuu ka adag yahay waxaan hadda sameynay laakiin ma aha wax oo too much maaha so waxaa sameynaysaa game la dhaho game object wax la dhaho sameynaysaa classka ugu koreeya waaye classka labaad wuxuu dhaxlayaa kan game object so waxaa leedahay class characters extends game object aa leedahay so kana u sameynaysaa classkiisa gooni ah humanoidkana waa wuxuu dhaxlayaa characteristics uu dhaxlaya character statsankooda yuu dhaxlaya so waxaa leedahay class humanoid extends character stats aa leedahay intaa ku qoraysaa marka so mid kastana wuxuu kan kale ugu duwan yahay yaa gelinaysaa for example kan camal wuxuu gooni leeyahay team weapon language and greed uu gooni leeyahay so kuwaasaa ku daraysaa kan wuxuu gooni leeyahay healthy points take damage uu gooni leeyahay waa ku daraysaa example waxaa fiirinaysaa marka wixii aan sameynay just same thing we did yaa halkaan sameynaysaa so classkana sameynay so kan camal wuxuu noqonayaa game object uu noqonayaa and then waxyaalaha siinaysaa and then childkan wuxuu noqonayaa kan waa character attributes kabacdina kan waxaa game object and then wax kala ku daraysaa so laakiin kan waxaa weeye waa prototype weeye remember maaha class kuma sameynaysid prototypeka ku sameynaysaa so waa inaad dhahdo sidaan camal aan u samayso waa inaad isticmaasho waxaad isticmaalaysaa kan game haddaad rabto inaad soo jiidatid wax cusub aad samaysid oo let's say method cusub waxaa leedahay game object dot prototype dot what was it take damage or something destroy so that would be in maxaa la jiray method waaye kana method gooni ah waaye so all that stuff markaad samayso oo set up garayso kana commentiga ka bixinaysaa so qaybtan dhan oo objects aan hore u sameeyey all this aa ka bixinaysaa commentiga kulligeed all this console logan aa ka bixinaysaa commentiga kabacdi waa raan garaynaysaa haddii wax kasta ay sidii ahaayeen kusoo baxaan so kuwan waxaa la rabaa inay noqdaan saan camal so midkan waa ina midkan soo saaro waa inu kan soo saaro haddii su soo saari waayeen micnaheedu waxbaa ka qaldan habka u set up garaysa midda kale waxaa waaye classka iska fudud yahay isaga waxaa sameynaysaa class kale waxaad sameynaysaa person la dhaho camal familkaada waxaa ka sameynaysaa marka maxaa la jira child objects so waalidkaada camal yaa u sameynaysaa class gooni ah and then adiga class ku sameynaysa walaalaha class gooni u sameynaysaa oo waad isdhexlaysaan and then message aa gelinaysaa speak la dhaho and then intaa gelinaysaa hi my name is hebel and I am intaasa sana jiraa and I love waxaas so inaa geliso waxyaalahan waa name age hobby inaa geliso properties so that's it so any questions wax su-aal intaan xirin midda gameka exampleka hadda tan soo maaha tan hadda kan ugu horeysa camal waa idin siin karaa example ahaan gameka let me give you this one example aan ku siinayaa waxaan gelinaynaa let's put it in the go ahead wax maartina weydiiso continue okay continue so example haddaan ku siiyo let's comment everything out si inaan buuq noogu furin okay hoos hadaa aadno inta waxaan leenahay assignment example aan leenahay assignment first problem first class let's say camal classka ugu horreyn sameynaynaa so waxyaalahaanuna weydiinayaa let's give it a comment kulli waxyaalahaanuna weydiinayaa so waxyaalahan waxaan leenahay marka inta waxaan sameynaynaa class waxaan leenahay game object si u qoran yaa u qor exactly and then intaan furaynaa so kan classka ugu horreeya waaye waxaan siinaynaa dhowr wax marka so marka hore constructor aa u sameynaysaa constructor waxaa gelinaysaa inta attributes camal and then waa open garanaysaa so waxaa leedahay this that created at is equal to attributes created at okay that's number one midda kale magac waa name so this that meeshaan cancel meeshaan code banka name ma dhihi kari so I have to say my name is equal to attributes kan laftigiisa soo koobi karaya attributes that waxaan leenahay my name okay and then wuxuu yidhi dimensions so let's put dimensions here this that
dimensions is equal to attributes dot dimensions. Okay, so that's, and then wuxuu leeyahay waxaa sameysaa these represent the character size and the video game in the video game. So waxaan kaloo sameynaynaa method la dhaho destroy. So waxaa leedahay destroy that saas ma ahan, waxaa sameynaysaa sorry, waxaa leedahay into dimensions. Okay, so constructorka banaankiisaan ku sameynaynaa. So waxaan leenahay destroy calaamadaas, and then waan furaynaa. So just message kan la gelinaysaa marka. So this is what you're gonna put in. This that name waaye. So hadda kan naga waa my name was removed from game. So that's it. So kan waa problemka ugu horeeya kaas ah. That's it. It's done. So inta la ku qoraysaa marka, you put it right there, mesh commentiga dhexdiisa gelinaysaa, and then kana waxa wuxuu dhaxlayaa game object dhaxlayaa. So waxaa leedahay class character stats extends game object, inta ku qoraysaa waxaa isticmaalaysaa constructorkii superkii isticmaalaysaa, and then extra one more thing ku daraysaa oo ah health points ku daraysaa, and then waxaa ku daraysaa one more method oo la dhaho take damage, and then message kana gelinaysaa, and then game object name na waxa waaye waa kan magaciisa. So this name human sidoo kale u sameynaysaa, and then all of them markaa set up garayso oo u sameyso methodkoodii waxoodii, then waxaana uncomment ku sameynaysaa all this sheekadan dhan intaasoo dhan. So waa inay ku run garayso oo cancel loo kasta soo saarta message kasta. Haddiina soo saarin, then micnaheeda waxaa waaye waxbaa qaldan. Any questions? So waxaa haysataan berri insha allah inaad ku sameysaan tomorrow. So tomorrow waxaa Tuesday aad ka shaqeynaysaan, and then Wednesday waxaan sameynaynaa, waxaa bilaabanaya spring projectigi yaa bilaabaysaan. So Wednesday waa spring projectiga, keep that in mind. So spring projectigana waxaa waaye waxaan bilaabaynaa let's say camal I think waqtiga marka idin tahay 11 uu bilaabanayaa, ama waa bilaabi karnaa waqti ka horeyso 10, macnaha aniga markii 10 itaan ka wada ama 11 ii tahay, adinka idin tahay 7 or 6 meelaas. So hadartan 7 aan bilaabi karnaa. 4 hours waaye, so 4 saac, keep that in mind. So berri insha allah ka shaqeeya, waa isla mid garaynayna hadartan. Haddii issue wax idin keeno iisoo sheega insha allah. Okay, hore culumo khayran idin rajeynayaa, waan kasii baxaa insha allah. Hadaa su'aalo qabtaan. Thank you. إن شاء الله. السلام عليكم. Close it up.